shirweynahan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlayay dardargelinta sidii looga wada shaqeyn lahaa fulinta qorshaha amniga qaranka ee dawladda Soomaaliya geysay shirki London iyo sidii beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya u yeelan lahaayeen wada shaqeyn dhaba oo lagu horumarinayo wadankeena. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulanka shir gudoomiyay waxaana ka qayb galay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka, wasiirro ka tirsan xukuumadda, safiirada dalalka caalamka u jooga Soomaaliya, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, safiirka midowga Afrika ee Soomaaliya, safiirka midowga Yurub. Waxaana looga dooday hanaanka ugu wanaagsan ee loo dhaqan gali karo sida ugu dhaqsiyaha badan ama loo hirgelin karo qorshaha ammaanka qaranka ee dawladda Soomaaliya caalamka ku qanacsan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shirka ku soo bandhigay horumarka dawladda Soomaaliya ka samaysay sugidda ammaanka dalka, isla markaana ka qaybgalayaasha u sheegay inay tahay laga maarmaan in caalamku uu fuliyo go'aanadii ka soo baxay shirki London taa oo suurto gelinaysa ama sare u qaadaysa kobcinta dhaqaalaha, maalgashiga iyo in dalkeenu uu gaaro isku filnaansho. lana gaaray xilligii laga dhabayn lahaa in dawladda Soomaaliya shacabkeedu ay caalamka kula xisaabtamaan waxyaabaha ay ku taageerayaan iyo hirgelinta go'aanadii ka soo baxay shirki London. dhammaan ka qaybgalayaasha shirka ayaa soo dhaweeyay khudbadda Ra'iisul Wasaaraha waxayna shaaca ka qaadeen inay ka go'an tahay garab istaagga shacabka iyo dawladooda, iyagoo sidoo kale soo dhaweeyay horumarka dawladdu ay ka samaysay ammaanka dalka, gaar ahaan xasilinta magaalada Muqdisho taa oo muujinaysa in Soomaaliya u jeesatay hanaanka dawladnimada oo ay hormuud u yihiin shacabka Soomaaliyeed rabitaankooda ay ku shaqeynayso dawladdu. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka ayaa markuu soo idlaaday shirka waxa warbaahinta qaranka uga warbixiyay ahmiyadda shirka uu lahaa. waxaana lagaga hadlayay qorshaha la isla qaatay ee hore madaxweynaha iyo dawlad goboleedyada ra'iisul wasaaraha kulli loo wada ansixiyay lagu soo ansixiyay haddana London ee beesha caalamku ay ogolaatay inay wax ku darsato sidii loo taabagelin lahaa. marka shirkan wuxuu ahaa daahfurkiisii u horeeyay ee qorshaha amniga qaranka ee dawladda Soomaaliyeed ay leedahay, beesha caalamkuna la qaateen sidii looga wada shaqeyn lahaa. bisha Oktoobar waxa dhici doona shir weyn oo lagaga hadlayo isla xisaabtanka iyo sidii loo wada hirgelin lahaa qorshahan maxaa ku waajiba ee dawladda Soomaaliyeed ay la imanaysaa, maxaa beesha caalamka ay naga caawinayaan. marka si guul ah buu ku dhamaaday, 2 saacadood buu qaatay. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.